السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتنا أن جعلنا مركلة كسر لواذا برنامج كنا فاقداد عيارها قضبضا عين كوهيننا وحا كمدا kooxda Liverpool oo loo saadaaliyay guul darro isbuucan soo socoto marka ay iska hor yimaadaan kooxda Manchester City waxaana sidaas u saadaaliyay oo sheegay khabiirka cayaaraha ka faalloodo Mark Lawrenson oo Jurgen Klopp iyo xidigahiisa Liverpool ugu bishaareeyay in isbuucan ay guul dareysan doonaan. Khabiirka BBC Sports oo Liverpool guul darro u saadaaliyay wax guul darro ah dhammaan 159 kii ciyaareed ee ugu dambeysay ay ciyaartay kooxda Liverpool. Khabiirka BBC Sports ayaa Liverpool wax guul darro ah aan u saadaalinin 159 kulan oo ay ciyaartay kooxda Liverpool oo intaas la safnaa 1637 maalmood ayuu khabiirkani kooxda Liverpool u saadaalinayay in ay badinayso. Hase yeeshee khabiirka BBC da Sportska ayaa ka hor yimid isbuucan kooxda Liverpool iyo Jurgen Klopp oona ugu bishaareeyay in ay ka badin doonto kooxda Manchester City kulan xiiso iyo xamaasad badan oo la wada sugayo oo ka tirsan kulamada tobanaad ee horyaalka Premier League. Si kastaba ha ahaatee khabiirka BBC da ayaa soo gabagabeeyay muddo dheer oo kooxda Liverpool u saadaalinayay in ay guuleysanayso, waana saadaashiisii ugu dheereyd khabiirka BBC da Sportska ee abid oo koox saadaaliyo. Haddaba kooxda Liverpool ayaa waxay Axadda u safri doontaa magaalada Manchester ayadoona kula ciyaari doonto kooxda Manchester City Etihad Stadium kulan soo geli doono fiidka hore ee habeenimada Axadda. Muddada uu kooxda Liverpool u saadaalinayay khabiirkan in ay guuleysanayso ee ah 159 kulan ayaa Liverpool waxa ay ku naaloonaysay guulo isdaba joog ah waxayna ku dhawaadeen in ay barbareeyaan ama ay jabiyaan iskoorkii u yaalay kooxda Arsenal May 2003 ilaa October 2004 oo intaas Arsenal wax guul darro ah aanan la kulmin. Mark Lawrenson isbuucan waxa uu ku saadaaliyay kulankaas xiisaha iyo xamaasadda badan ee dhex mari doono kooxaha Manchester City iyo kooxda Liverpool 2-0 ayuu ku saadaaliyay oona guusha siiyay kooxda Manchester City. Inkastoo saadaal tahay oo khabiirkan ciyaaro badan oo isbuucyadan saadaaliyay ay saadaashiisa sidii saxda aysan noqon, haddana muddo dheer ayuu kooxda Liverpool waxa uu siinayay guul ayuu ku soo gabagabeeyay kulankan uu Manchester City guusha 2-0 uu siiyay. Si kastaba ha ahaatee taageerayaasha ayaa kulankan indhaha ku wada hayo. Haddii aad tahay taageero kooxda Liverpool ah ama aad ka mid tahay dhageystayaasheena, fadlan kumanti ku soo saadaali ciyaarta oo nala soo wadaag wixii ra'yi ah oo aad ka qabtid iyo cidda badin doonto kulanka Sabtiga Axadda ee Manchester City iyo Liverpool. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamij lamida fi amaanillah.